war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada militariga dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya beesha caalamka ay duqeymo ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan tuulooyinka Damasha iyo Shabeelo kuwaas oo lala beegsaday xubno sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. duqeymahan ay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa lagu sheegay in lagu dilay xubno sarsare oo ka tirsan dagaalyahanada ururka Al-Shabaab. war-saxaafadeedka uu soo saaray taliska ciidanka xoogga ayaa lagu sheegay in la khaarijiyay Mansoor Timoweyne oo ahaa maskaxdii ka dambeysay isku diyaarinta iyo adeegsiga gawaarida dagaalka ee ururka Al-Shabaab waxaana ninka ka yimid dhinaca Koonfur Galbeed. si kastaba ha duqeymo culus oo maalmihii la soo dhaafay lala beegsanayay kooxda Al-Shabaab oo soo gashay deegaano ka tirsan Shabeellaha Dhexe ayaa lagu dilay saraakiil iyo dagaalyahano badan. waxaa sidaa oo kale la gubay gaadiid badan oo nooca dagaalka ah sida war-saxaafadeedkan ku xusan. dhinaca kale ururka Al-Shabaab ayaa laba jibaaray dagaaladii ay ku soo qaadayeen saldhigyada ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan iyo dagaalo ba'an kula galay deegaanada Ceel Baraf iyo sidoo kale Biyo Cadde. shalay ay ahayd markii ururka Al-Shabaab dagaal qaraxyo ku bilowday ay ku qaadeen hotel Qaahira oo ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyagoo halkaasi ka geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh oo ay ku jiraan nabadoono halkaasi ku shireeyay saraakiil ciidan iyagoo ugu dambeyn dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay in saaka la soo afjaray dagaalkii halkaasi ka dhacay ama hotel Qaahira ay ku qaadeen ururka Al-Shabaab iyagoo halkaasi dadka deegaanka ay sheegayaan in ururka Al-Shabaab ay kala baxeen ciidamadii halkaasi ku dagaalamayay muddo gaaraysa 24 saac iyagoo halkaasi ka sameeyay magaalada Arbushaad iyo sidoo kale weeraro ay ku doonayeen in halkaasi ay kula baxaan dagaalyahanada halkaasi ugu jiray ee ka dagaalamay. si kastaba ha ahaatee ururka Al-Shabaab ayaa bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa laba jibaaro dagaalka ay kula jiraan dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada Midowga Afrika ee gacan ka siinaya inay la dagaalaan ururka Al-Shabaab.